أولاً وحنا أنا ما أدعيله دولة كاونتي government of Garissa وهجمنا governor His Excellency علي بونو قرنة ويا مشروع عن حدود جيرين أو مارتي budget كلا صوم مرنين وزير كلا فريقي سنة موكي كلام لأن ما كان governor ما أدعيله وكما سنة هاي وناجن إشرفتن يوم مارتي غير كان مارتي ديجان كان جوجو سيد ونوع عبيي وزير كان مرة عضو علنا أسجنا مدام نينك ماشي وين أوي هاي أصلا فريقي سنة حلقة قامة وحفيزك وكسرك إنه ماذا مارتي وحي وناجي لقبتي إنه حقيقي waxaan rabaa saddexan inaan wada celiyo dadweynihii raacay kuna specifically tusmo farm waayo dadaalku isku xireen ka bilowda gabana ilaa ay shacabkii dadaalkan sameeyay oo maanta nagu soo dhaweeyay babaygan iyo qarahan iyo wanaagan aan meesha maanta ku cunay haday jirin isku xirnaanta u jirin waxa ma suurtagal leen waxaan rabaa dadweynahan ka codsani beerooyinku way badan yihiin kuwa badan baa jiraan maamooyinkan group maamooyin baa jira ayagana beertooda in maarta lagu daydo tusmo farm la sameeyo meeshan wax badan bay ka qabatay idaaradda biyaha ee county government-ka ceelkan oo loo kiib gareeyay ceelkii weynaa ee magaalada isticmaalaysa oo intuu jabay oo maartay ilaa ay 3 bir 4 bir u jabnaa dawladda ay sameysay caawimaad macnaha ka dawladda ka imaatay loo hagaajiyay janarata cusub noola keenay haddana wixii dhammaan wasiirka oo macnaha dadweynaha ay ka codsan ka wada codsanay inuu ballanqaad noo sameeyay labadii ceel ee banaanka ku yaala meesha beerta in maartay laba usbuuc gudahood lagu dhameystirmaayo beertana solar ay ku shaqeynaysa sifa beeraha kale ay uga faa'iideystaan in janarada cusub loo keenan doono intaas wanaag waxa keenaya maartay dadaalka dadweynaha ka imaatay anagi iyo dawladda ayadana dadaalayso dadweynaha haduu dadaalo dawladdu wax way la qabanaysaa marka waxaan rabaa inaan faro dadweynahayga inaan faro annaga waxaan ma karo xoolo dhaqataan ahayn xoolaha hadda wada warteen marna abaar baa jirta abaarta baa gashay doogna ma kala helaan dana cudur baa gali labada dhinac xoolaha way dhamaanayaan marka qaab macnaha isbedel lagu sameeyo waayo xoolaha in la dheefsado loo sameeyay wixii intaad ku rafadana dheefsan waysa dana uu dib aad ka qaado macnaha waa dhibaatada leedahay waxaan ku baraarujinaa dadweynaha maanta sawulkan iyo hadii la geeyo suuq la geeyo wixii xoolaha 7 bilood 8 bilood aad ama sanad aad ka faa'iido lahayd yaa laga inaa bil imsalo balad ku faa'iido waxaan ku baraarujinaa dadweynaha inay isbaraan beeraha in maartay qaabkan loo wado wood ahaan aniga maadaama mas'uulku warka abaqay aan ahay beera kalena kuma xataa laga sameeyay wasiirkana uu arkay sana ballanqaad buu sameeyay wixii u baahan yihiin loo qaado dadka waxaan rabnaa inay isxilqaamaan marka isxilqaanto iyo adigana dadweynaha iyo dawladda wax kula qaban kartaa waxaan ku baraarujinayaa shacabka inay isxilqaamaan balmaan xoolo waan aragnay in beerta qaabkeeda loo sameeyo beerta inay wax tari wax goonna meesha maan ruuxa loo gooy 35 xabo qaran loo gooy halka qaran ilaa 300 400 baa la siinaa waa garan kartiin waxay tarayso hadii laga abuuro waxyaalo kale wax badan meeshan uu ka baxaya waxa ka baxaya simsimta ka baxaysa basbaasa ka baxaya qaraha ka baxaya waxa ka baxaya mahrageeda ka baxaysa kulli ku wada bariyan waan aragnaa macnaha wax oo living testimony waan aragnaa marka waxaan ku baraarujinaa dadweynaha ban in la isku dayo anagana wixii dadaal aan sameyn karna dawladahan iyo maartay mas'uulahan waan ku dadaalnaa dawladda insha Allah wayna ku maasan yihiin in la isku xirnaado oo macnaha barnaamijka qaybta insha Allah dad expert oo private iyo xagga dawladda socdaan waana keeni doonaa sifad dadweynaha lagu baraarujiyay wal maartay sifa beeraha wax u sameeysan insha Allah wayna ku maasan yihiin sida